wasiirka diinta iyo awqaafta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa fariin u diray shacabka Soomaaliyeed. wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mukhtaar Roow Cali oo ka hadlay kulanka wasiirka amniga gudaha oo la qaatay wasiirada diinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa ku booriyay shacabka Soomaaliyeed in ay si wada jir ah uga qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab. wasiirka ayaa sheegay in amniga caasimadda uu yahay mid sare loo qaaday loona baahan yahay in la sii adkeeyo taana ay ku imaan karto in shacabka iyo dowladda ay iska kaashadaan sugidda amniga. wasiirka amniga gudaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan leenahay jazakallahu khayr, waadna sharaftay, cashaad noo samaysay, waana soo dhaweysay. annagu maalmahan waxaan dhahaynay ani iyo wasiir Shariif Saalex martiya noo joogto aw anagu xataa martidaan ku geernayo wasiirka amnigaan marti wada noqonay. runtii waana sharaftay, Allah ku sharfo. waxaan ku dhahaynaa sidoo nabiga dhihi jiray qofkii diyaafo iyo wanaag u sameeyo afdara cindakum as-saa'imuun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-malaa'ika wa jazakallahu khayr. runtii saad ogtihiin wasaaradda amniga dowladdu waxay u tahay meelaha ugu muhiimsan oo saad ogtihiin wasiirka waxaa laga rabaa marmaro hadda golaha wasiirada aan joogno runtii la warsadaa xildhibaan kasta wuxuu ka rabaa ciidankii ammaankiisa sugi lahaa inuu siiyo ayuu ka rabaa. wasiirku wuxuu leeyahay aniga haddii ciidamada ugu yara soo kordhi, wasiirka waa ka rabaa, xildhibaanka waa ka rabaa, cid kastoo mas-uul oo dowladda ah waxay ka rabtaa ammaankeeda inuu u sugo ayay ka rabtaa bacdallaahi. waana la ogyahay runtii inuu ku guuleystay oo wax badan uu sugay, jazaahullahu khayr. annaga hadda shir aan qabsanaynay labadan beri waa iska fadhinay, qof watana naguma jirin. waxay dhahaan Soomaalida qof dhaqdhaqan haddaad aragto midaa dhoobada ugu jira, isaga banaanka waardiya hayay bacdallaahi iyo raggiisii iyo runtii abaabulkiisii iyo takhdiidkiisii baan anigu meeshaan si nabada ku joognay. ilaahay inuu nabadda noo kordhiyo ayaan rajaynaynaa. wasiir waxaan ku leenahay jazakallahu khayr, runtii isxilqaankaaga, ixtiraamkaaga iyo runtii inaad garatay intaan inaad meel isugu keento, aada sharafto, aada casho u samayso. allaha ku barakeeyo, aad baan kaaga mahad celinaynaa. waxaan rajaynaynaa wasaaradda amnigu say hadda caawa oo kale ay yeeshay wasaaradaha kale oo dhan in runtii garbaha la isqabsado oo dhammaan cadowgaas oo ciduu dhaafaya aan la arag la iska wada kacasho. insha allahuna hadda waa bilaabatay, baraarug fiican baa jiro, inta kalena inay wada baraarugaan oo gacmaha la isqabsado ayaan rajaynaynaa. dhammaan wasiirada meesha joogo waxaan leeyahay aan u ducayno wasiirka amniga iyo diyaafadu noo sameeyey, jazaahullahu khayr.